taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani oo ay wehelinayaan saraakiil ka tirsan ciidankaasi ayaa soo gaadhay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo waxaana taliyuhu ugu horeynba duleedka galbeed ee magaalada Ceergaabo salaan sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag. taliya halkan waxa salaan sharaf kugu diyaariyay cutub ka tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawow taliya. sidoo kalena waxa halkaasi taliyaha ku soo dhaweeyay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo waliba mas'uuliyiin kale oo ka tirsan gobolka Sanaag. intaasi kadibna sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani taliyaha guud ee ciidanka qaranka Soomaaliland waxa uu goob fagaaraha kala hadlay warbaahinta isagoona ka warbixiyay ujeedka socdaalkiisa. safarkayga aan halkan ku yimid waxa weeyaan waa kormeerkii ciidanka qaranka waan kormeerayo saldhigyada ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag ku yaala waxa kale oo la shiri doonaa meeyarka iyo barasaabka labadaba wixii hawlana markaasaan ka wada hadli doonaa laakiin muhiimadeedu waxa weeyaan in ciidanka soo kormeero oo gobolka maadaama markii labaad ay tahay hadda oo ka raagay intaas weeyaan waad mahadsantihiin.